بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ومانتا وهلكم waxaan joognaa waa iskuulkii gab ee secondary-ga ahaa waxaan salaamayaa maamulka macallimiinta ardayda shaqaalaha dhammaan basalaaniga gudoomaale halkan waxa nologa soo dhiibay walaalaha iyaga qurba joogta ee gobolkan u dhalatay awdal gaar ahaan degmooyinka halkan ka kooban ay ka mid yihiin maxay geersa هايدي فردها هايدي جب هايدي كربة دار لوهيا إلا يبون إنتاس قبل هذا أول شيء يو إنت كله أوضل دلتي دمان تكاس أو جوجا نوروي أيها هل كان هذا سوى كل شيء وعلاقة ولا له هذا أرضي ده هل كان جوجا وصدري ولا لها صدري وحن لا يهرتا alaabti waan gaarsiinay waana aad baan u mahadsantihiin waana niga gudoonay inta kale ee joogta dhulka kalena wala inay dadkooda sida u soo xasuustaan ayaan iyagana kula talinaya waxa weeye iskuulkan gab waa qurba joogun baa dhisay inamadeena professorada inamada baayac mushtarka ee gobolkan awdal u dhashay ayaa iskuulkan gab ku tabarucay oo heerkaas soo gaarsiiyay maanta ubaxa halka ay ga dambeeyana ay maanta ka dhiganayaan ayaa ku shaqalay qurba joogta kale ee aan war haynin inay maxay hayday qurba joogta sida u caawiso dalkooga ayaan maanta u sheegayaa qaybta dhan ee iskuulka arkaysaan ardaydaas oo ka kooban ardayda ka soo kala baxay meelaha idin sheegayo lughaya maxay hayday garbada gargaara بون ونجد إلا قبلي إلا سيلع إلا إنتصر كجرة ويان أرضيداس أو أرضيدي أي دتكو أي ودريين دتكو إنه وحبة هاي سنين هي أركانين إنش يعني سنتر كيت هاي أو دور الطريق يسوي مادي يا الله وطلقاي إنه محيد عروتاسي السوق كنت أما قارسول كجهرية مركي وحير مصاريف ودران وين غيره أي كردش يعني ayaa iskuulka qurba joogteenu ay arkeen soo mareen ay u dhiseen ilaahayna waan ugu mahadinayaa halkay ka soo bixiyeen miisaanka xasanadkan ilaahay ugu daraan leeyahay maanta waxa inoo labaysa inay maanta dadkeenii Scandinavian-ka iyo dhulka joogayna ay iyaguna wax soo direen maanta Norway joogta jaariyadeena Norway joogta ee gobolkan awdal u dhalatay ayaa maanta deeqda dharka garamaanta toobabka hablaha xijaabiyada duraaxadaha wax walba leh kabaha wax walba leh maanta noogu soo deeqay weeyaan inta kale meel kasta adduunka lixda qaaradood ka joogana waxa leeyahay dalkiina meelo badan oo pointiya sidaas ay looga baahan yahay inaad soo caawisaan oo aad wax badan sameysaan annaguna maanta wixii baahiyaha jira ee meesha ku aragnay annaguna waan nii soo gudbinaynaa sida aanan iskugu xidhnaano annaguna waanaga maanta alaabti gaarsiinay macallimiintii iyo ardaydiiba iyagoo faraxsan oo alaabti qacantoodii ku haysta وأنا maanta ay naga gudooneen saasana maxay waad mahadsantiin sida ay nabadgelyo macallimiinta halkaan nagu soo dhaweysay maamulkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha halkan jooga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan dabadeed aad ayaad u mahadsantihiin waxaan maamulka soo soo dhaweysay annaguna waxaan kaloo mahadnaqayaa jaaliyada u dhalatay gobolka awdal gaar ahaan eeriyadan gab iskuulka danaynaysa alaabtii dharka ahaa ee aad u soo dirteen aad ayaad ugu mahadsantihiin haga ka soo saarteen ilaahay miisaanka xasanaadka ay nagu daraan leh intaana inaad ka sii dadaashaan oo ka sii badisaan ayaan idinka rajaynaynaa inta kale ee adduunyada meel kasta ka joogaan in ay iyaguna ku daydaan si ay dadkooda wax ugu soo qaban lahaayeen ee u soo taageeri lahaayeen ardayda yaryar ee meesha cidlada ah ee ay wax ku baranaya ee dadaalaya ee loo gartay halkaas in ay tahay meel ku haboon in ay wixii ay u soo qaban karaan ay u soo qabtaan ay maaragtay ka soo caawiyaan xaq dhaqaale iyo xaq maxaan ku ilaahay wax barashada aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحنا دي أحد وفرح صناعي sida weyn ee maanta ay walaalaha iyaga jaaliyada gobolkan awdal u dhalatay gaar ahaan deegaankan dugsigu ku yaalo ee baaxadda leh jaaliyada u dhalatay reer awdal ee degan waddanka Norway
runtii waxaan leeyahay aad ilaa xad ayaad u mahadsantihiin dadaal weyn baad samayseen deeqdaas qiimaha iyo qaayaha leh ee aad soo gaarsiiseen ubadkiinii oo maanta ku jira dugsigan sare ee gab aad ilaa xad baad uga mahadsantihiin caalamka maanta waxaynu ognahay in inta horumartay ay ku horumareen dadaal sidaas oo kale oo dadka horumaray maanta ay yihiin dad saas oo kale wax isugu qabtaa mar walba isgarab taagan iska warhaya mar walba dadaal dadkooga inba inta kale ay wax u qabato maanta tiim baa iyadna meeshan ka muuqata jaaliyadaas maanta reer Norway dadaalka weyn ay muujiyeen ee deeqda dharka ay soo gaarsiiyeen runtii waa shay qaali ah waxaan sidoo kale aad ilaa xad aan ugu mahadnaqayaa ugu horeynba walaashay Caasha Kalluun leh iyo Khadre Ismaan Ducaale oo iyagu deeqdan na soo gaarsiiyay aad ilaa xad maatayn dadaalkii iyo wixii loo soo wakiishay si directly oo tafaqtiran oo dhamaystiran bay noo soo gaarsiiyeen idinka intii soo dirtayna waan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan leenahay inta kale ee jaaliyadaha reer Awdal ee qurba joogta waxaan leeyahay idinkuna sidaas oo kale inaad ku dayataan ayaa mudan mar walba in gobolkii laga warhayo mar walba ummadda isku xidhnaato kii dalka joogay iyo kii dibadda joogay waa shay qaali ah sidaad arkaysaan deeqdii dharka ahayd ee la soo dirayna already waan wada gaarsiinay arday walba intii uu lahaa waa la siiyey markaa runtii waxaan leeyahay mar labaad aad ilaa xad bay jaaliyadaasi u mahadsan tahay dadaal weynna way soo galeen markaa runtii haddaan nahay maamulkii iyo macallimiintii dugsiga sare ee gab waxaan leenahay aad ilaa xad baad u mahadsantihiin